rabaa inaan hadda fursaddan maanta uga faa'iidaysto jawaabta ay dowladda federaalka Soomaaliya ka bixinayso shacabweynaha Soomaaliyeed ee ku tabaaloobay gobollada awdal iyo waqooyi galbeed oo sidaan loo wada soconno ay dhibaatooyin Somaliland oo sidaan loo wada soconno ay dhibaatooyin badan oo ay keeneen roobabkii iyo daadadkii iyo duufaanadii ku dhuftay ay u geysteen dad ku leedeen deegaankii iyo dhulkiina dhibaato weyn iyo barakac gaarsiiyey sidaa daraaddeed dowladda federaalku waxay ku yabooday una deeqaysaa $1 milyan oo ay ugu tala gashay in loogu gurmado qoysaskii ku waxyeeloobay taageero ay uga geysato ilaahay idinkiisa sida ugu dhaqsaha badanna ay dowladdu u fulin doonto waxaanuna had iyo jeer sharaf noo ah gacanta ayna siiyaan wada shaqeyneed culimada